caawa aad u faraxsanahay ina ku guuleystay booskan runtii aniga kaligay ma sameynin guushan waa guusha dadka dhan intii oo soo taageertay garab istaagtay oo caawisay mahadsanid runtii hadda magaalada ana mas'uul ka ah oo maxaa rabaa ina si fiican mas'uulkaas ugu fikiro si fiican xoog saaro sariga waxa hadii especially housing ka maxaa rabaa qof walba oo sarigan usoo guurto inay guri ka gado karto oo wealth-keeda dhisa karto oo si safe ah oo qorshadeed maxay tahay hadda wixii dadkii ugu doorteen ina sameeyo oo ka xisaabsan again waxa hadaayad ka dhahay housing iyo public safety inta ka caawi karo inta ka dadka garab istaagi karna waa sameyn naadiyo waxay noqotay gabar yar waa qof dhalinyaro ah waa qof Soomaaliya waa qof diinteena dhaqankeena haysata waa qofna matali karta waxaan rabaa inaan ugu celiyo hambaliyo waalidiinteeda aabiyo hooyo community-ga soo koriyay oo cad nool ka soo dhigay iyo election-keedu wuxuu noqday election xalaal ah wuxuu noqday mid aan la isku haysanin wuxuu noqday mid nadiif ah oo u noqonayo astaan election-nada soo faraxsanahay maanta waxay gaadhay anigoo community-ga ka tirsan Louisburg wiilashayday la galaasahayd si gaar ah ay taabanaysaa maadaama xaafadan Louisburg in badan ku noolaa ilaaha mahad iskale caawa habeen qurux badan waaye walaasheen naadiyo marna abti u nahay abti ilaahay maaragtay xilkana ku asturo waxaan rajaynaynaa inaad ka soo bixi karto waana qofkii loo midnaayaa tahay waxaan ku rajaynaa intaan in ka badan inaad qaban doontid marba garabkaaga nahay hiili hol oo mutaayarsannahay waxaan aaminsanahay jiilka soo baxay inaan u tahay iftiinkii oo wadada u furi lahay waxaan u hambalyeeynaa gabadheena oo maanta ku guuleysatay meeyarnimada magaalada St. Louis Park waxaan leenahay hambalyo abti waxaan ku faraxsanahay markii wada u hambalyeynaa naadiyo oo ku guuleysatay maayarka St. Louis Park abti waxaan ku leeyahay hambalyo congratulations caawa haween oo farxad ay noo tahay abti mar labaad iyo mar saddexaad guul insha Allah dareenkayga ma la koobi karo maanta maalin ay ka farxad badan tahay dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota oo maleemaayay jirto naadiya waxay noqotay first Somali first black first Muslim oo noqota mayor ka noqota city of St. Louis Park Minnesota markii horena iyadoo ahayd the only one oo black ah oo Muslim ah oo Soomaaliya ka ahayd city councilor waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan kugu faraxsanahay